hogaamiyaha badda ee dowladda Cusmaaniyiinta boqorkii iyo amiirkii badda Barbarossa halgamaa waqti ku bixiyay si uu soo afjari lahaa burcadda badda ku ugaarsan jirtay hantida iyo xoolaha dadka muslimiinta. wuxuu ahaa badmaaxeen micnaha shakhsi ku nool kana shaqeeya badda. wuxuu badbaadiyey 70,000 oo muslimiin ka soo qaxday dhulka Andalus. waa shakhsi ka mid ah madaxdii dowladda Cusmaaniyiinta kaasoo magaciisa ah Khadar bin Yacquub laguna naanayso Admiral Khayruddin Barbarossa. wuxuu ahaa suldaankii badda dhexe ee militariyaanka. waxaa la dhihi jiray suldaanka iyo boqorka badaha. magacaygu waa Diin Xuseen Shacab. halkani waa kanalka iftiinka. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. reer galbeedka ayaa ku xadgudbay oo waxay ka sameeyeen filim lagu doonayo raadkiisa iyo taariikhdiisa in lagu xumeeyo. waxay jireen aflaam ay ku sheegayaan inuu ahaa shakhsi burcad ah kaasoo jidgooy u dhigta dadka safarada ku ah badda. waxay sawireen inuu ahaa shakhsi indhaha u duuban yihiin, burcad ah, dhaco hantida dadka, balse sida saxan cagsiga u ah fikradaha gaalada. waxay ahayd inuu ahaa halyey islaami ah kaas oo badda u galay si gaalada Yurubiyaanka ula dagaalamo xaqa muslimiintan u soo dhiciyo. waa nin taariikh suuban iyo halgan wanaagsan islaamka u reebay, balse been abuur laga qoray diiwaanada iyo kutubta reer galbeedka. dhanka muslimiinta waxaa loo yaqaanaa Khayruddin Baasha, halka dhanka reer galbeedkana loogu yaqaano Barbarossa, micnaheedu yahay ninka garka gaduudan. waxaa magacan u baxshay Talyaaniga. magacan wuxuu isugu jiraa barbar oo micnihiisu yahay gar iyo roosa oo micnaheedu yahay midabka gaduudan. waxay dadku isku qaldaan magaca halyeygan iyo magaca boqorkii Roomaanka kaas oo lagu magacaabi jiray isagana Frederick Barbarossa, halka hogaamiyahan lagu magacaabo Khayruddin Barbarossa. ninkan boqorka Roomaanka ee Kirishtaanka magaciisu yahay Frederick Barbarossa wuxuu la dagaalamay Salaaxudiin al-Ayuubi oo ah shakhsi halgamaa kaasoo furtay Baytulmaqdes kana furtay gaaladii Saliibiyiinta. Khayruddin Barbarossa waxaa la dhashay 4 wiil, waxayna kala ahaayeen Isxaaq, Curuj, Ilyas iyo Maxamed. dhammaantooda waxay ahaayeen halgamaayaal islaam ah taariikh suuban ka tegay. dhammaantoodana waa dad laga qadariyo dalka Turkiga. wuxuu geeriyooday 1564, waana waqti laga joogo 5 qarni. markii ay qabsadeen dhulka Andalus gaalada, muslimiinta degneed waxaa lagu khasbay inay dhulka ka baxaan, waxaana la amray inay aadaan waqooyiga Afrika. dhacdooyinkii Andalus iyo furshadeeda iyo halganka Barbarossa waxay ahaayeen kuwo isku dhow. markuu Maxamed al-Faatixi furnayay magaalada Qustantiniya, iyo sidoo kale Taariikh ibn Siyaad markuu furnayay Andalus, waxaa la sheegaa inay u dhaxaysay 39 sano. waxaa dambeysay furshadii Qustantiniya laga soo bilaabo furshadii muslimiinta ee jasiiradda Imberia. Andalus sanadkii wuxuu ahaa 1711 miilaadiga. muslimiinta waxay halkaasi ku sugnaayeen muddo dheer oo lagu qiyaaso 8 qarni, waxayna halkaasi ka dhiseen xadaarad qiimo leh taas oo waddada u ifisay reer galbeedka Yurub. laakiin furshadeeda 3 qarni kadib, xulufadii gaalada ahayd ee waqooyiga ayaa bilaabeen inay u soo siqaan dhanka koonfureed. waxay bilaabeen inay qabsadaan midba maalin xurumihii islaamka ee muslimiinta, ilaa ugu dambeyntii ay qabsadeen qaaradaha oo ahayd xaruntii ugu dambeysay ee islaamka 1492 miilaadiga. waana sababtay u daacayadeynayaan gaalada halyeygan. wuxuu samayn jiray gaalada sirdoon u diro, kadibna uu ogaado inta muslimiin ee la haayo iyo meesha lagu haayo. wuxuu qaadi jiray dagaalo ay ka sheekaynayaan qaarkood. waxaa dhici jirtay in muslimiinta uu dib u soo daayo. hadafkiisa wuxuu ahaa in muslimiintaas dhibka uu ka saaro. wuxuuna badan ku safri jiray xeebaha Isbaanish iyo Boortaqiiska oo inta badan duulaano taariikhda galay ku qaaday. sanadka markuu ahaa 1529 iyo 36 doomood
ka soo daabulay muslimiinta addoonsiga ku jirtay iyo halaaga waxayna gaarayeen 70,000 muslimiintaas waana muslimiintii Andalus lagu cadaabayay wuxuuna geeyay dalka Jazaa'ir saalimkii Cusmaaniyiinta waxaa bedelay nin la wada yaqaano Sulaymaan al-Qaanuuni wuxuuna u yeeray Khayrudiin Barbarossa waxaa loogu yeeray magaalada Istanbul waxaa la shaaneeyay oo la nidaamiyay ciidankiisa wuxuuna dhaqaaqay uu ka tagay magaalada Istanbul 8,000 askari wuxuu bilaabay halgankiisa wuxuuna ku soo daray dawladda Cusmaaniyiinta dalka Tunis jasiirad loogu magacaabo Bilyaar oo Isbaanish ka tirsaneed ayuu wuxuu ka soo qafaashay 6,000 oo dad ah wuxuuna keenay Algeria waana arrin lagu abaalmariyay waxaa lagu abaalmariyay hogaamiyaha guud ee dawladda Cusmaaniyiinta dhanka badda 1538 waxa uu la bansanaa ciidan Yurubiyan ah waxaana kula bansanaa badda waxay wateen doomo gaaray 600 oo doomood wuxuu burburiyay heshiiskii waxaa halkaasi ka dhacay duulaan lagu tiriyo taariikhda muslimiinta guul ka soo hooyeen dagaalkaasi waxa uu socday muddo 5 saacadood waxa uu ku burburiyay awoodii ugu badneed ee Yurubiyaanka arrintaasi muslimiinta waxay u noqotay farxad dawladda Cusmaaniyiinta waxay bilowday dabaaldegyo waqti qaatay farxadda awgeed arrintani waxay keentay in laga hebaysto Khayrudiin Barbarossa taariikhda waxay ahayd taxna jiilba u dhiibayay xukunka iyo hoggaanka Allah u naxariistay Khayrudiin Barbarossa wuxuu geeriyooday isagoo jira 75 sano wuxuuna ku geeriyooday magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaan soo gaarnay gabagabadii muuqaalka haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar si ina gaarsii saaxiibadaada haddii aad nagu cusub tahayna inagu soo biir oo rukuma channelka si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aan soo gelin mar waliba intaynu ku kulmi doono kan iyo muuqaalkiisa fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh